tana hooyo iska daayay ilmaheed ma aha waxaan rabaa ninka wasiirka sheeganaya inaan u sheego inuu soo barto qowlkii alle falaa tuzakuu anfusakum ilaahay uu leeyahay naftiina ha ammaanina war waxba is ammaanina iyo aayadda kale ilaahay uu leeyahay wallaahu yaclamu almufsida min almuslix ilaahay asagaa kala og kan mufsidka ee arlada fasaadinaya oo fasaad ka shaqaynaya iyo qofka muslixa ah marka inaa is ammaantaba wax macno oo ay samaynaysa yani haba yaraatee ma jirto xaqiiqada inaynu isu sheegnaa la rabaa iyadoo aan cidna la ammaanayn haddii madaxweynuhu labadaas sano iyo dhowrkaa bilood maya uusan yidhaahdeen nabad iyo nolol maanta hirshabeelle iyo galmudug iyo waxaynu la mid noqon lahayn south west dowlado daciifa meel ay maamulaan aysan jirin dadkoodii la kala kaxaystay ninkii la doono meeshii la rabo loo dhiibto ninkii la doono la cayriyo ayaynu ahaan lahayn xaqiiqda jirta waay daciif waxaa la yidhaahdaa ciddii siyaasadda ka harta ama meel hoose ka joogta dadka reer puntland hooyadii waxay ahaan jireen federaalka maantay maamulkii ugu liitay oo ugu aflagaada badnaa oo ugu waxtarka yaraa ayaa hoggaanka u qabtay waana nasiib darro maantana hooyo iska daayay ilmaheed ma aha annagu haddii siyaasaddayadu ay noqotay maanta ama federaal ha noqoto ama international ha noqoto ama maamul goboleed ha noqoto ama soomaalida ha noqoto siyaasadda axmed cabdi kaariye oo madaxweynaha galmudug kursi uusa fadhin miiska Soomaaliya loogama hadlo xubno ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray wasiirka wasaaradda cadaaladda maamulka Puntland kaasi oo ahaa in dowlad goboleedyada Hirshabelle koonfur galbeed Soomaaliya iyo galmudug inay yihiin dad ducafo ah oo meel walba la geysanayo nin sheegtay inuu yahay wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Puntland oo ku tilmaamay dowlad goboleedyada dalka ka jira marka laga reebo Puntland iyo Jubbaland inay yihiin dad ducafo ah oo meel ay ka taliyaan aysan jirin madaxweynaha Puntland ku amaanay xaalana meesha uu ka degan yahay sidii villa Soomaaliya oo kale in loogu qadariyo waxaan dhihi lahaa wasiirka ninka sheegtay xigma carbeed ayaa waxay leedahay icjaabul insaani binafsihi daliilun calaa sigari caqlihi qofka oo naftiisa ay cajab geliso oo asaga wax weyn isu moodo ummadda kalena yani ka dhiga wax yani daciif ah taas waxay daliil u tahay calaa sigari caqlihi caqli yaraantiisa marka taas waxay muujinaysaa un caqli yaraanta wasiirkay muujinaysaa inuu iscajab geliyo oo isteedyadii dalka ka jiray oo dhan uu ka dhiga wax ducafo ah oo meel ay ka taliyaan aysan jirin oo Puntland iyo Jubbaland oo kaliya marka laga reebo inta kale ay ducafo yihiin waxaan rabaa ninka wasiirka sheeganaya inaan u sheego inuu soo barto qowlkii alle falaa tuzakuu anfusakum ilaahay uu leeyahay naftiina ha ammaanina war waxba is ammaanina iyo aayadda kale ilaahay uu leeyahay wallaahu yaclamu almufsida min almuslix ilaahay asagaa kala og kan mufsidka ee arlada fasaadinaya oo fasaad ka shaqaynaya iyo qofka muslixa ah marka inaa is ammaantaba wax macno oo ay samaynaysa yani haba yaraatee ma jirto marka waxaan dhihi lahaa ninkan wasiirka sheeganaya cadaaladdow inaad is ammaanto oo dowlad goboleedyada waddanka ka jira oo kula mid ka ahna aad xaqirto cadaaladda noocaas ah wasiirkeeda adaa sheeganaya nooca ay tahay adaa laga raba inaad jawaab ka bixiso